laba nin baa sheekaysatay oo odayaal ah oo Soomaali ah waayaha adduunka laga sheekaysto in baa wuxuu warniyo waliga masiibo ma kugu dhacdo markaas uu yiraahdo waabay masiibo igu dhacdo suu yir maxaa kugu dhacay niyo waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curado oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhig marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga waligay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaarta masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaarta suu yiri oo maxaa kugu dhacay suu wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subaxii waagu markuu bariyay adoo nus saac meelahaas baan reerku meeshu deganaa ku soo beegma roob baa habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wariq ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolo ay nool ah ku jira dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigii awrtii xataa dhimateen marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saas u jiifaan qoortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan midba barkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo raroy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay buu yiri oo dhagay mid xalad dilaaceen qaraxi meesha ka dhacay baash xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsaa meydkii tiriyebiya dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay biyo labadii xaas mid kamid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ahayd baan waayay raadna mar roob baaday meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan u yimid biyo geed hoosti ku socsan waa fiirshay gabadhi way nooshay ma dhiman ayadu way socsan tahay ratigii baan soo kaxaystay reeriyaan soo saartay gabadhi baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhi baan inta u sameeyay meel aan oo darga camal ah baan saaray ratigii baan la dhaqaaqay وانا سغالkeedii baa gabadha go'ay maalinkood dhan baan wadaa buu yiri ratigii waa iska mabanayo maskaxdaydu xataa caadi uma joogto goor casar iyo duhur dhexdooda hoos 8 saac iyo bar meelahaas baan wabiga ku imid buu yiri wabi meel maraan ku imid ayr baan inta gabadhina fool baa qabatay kaligay baana saaka xataa markaan soo baxay kama fakarin buu yiri gabadhan amay kugu foolataayo wax sakiin iyo midna ma wato wuxuu yiri mar alla markii gabadhii fooshi qabatay ratigii baan ka dajiyay wiil bay dhashay laakiin nasiib darro waxaan xudunta kaga gooyay male geed baan inta fuulay bay xaleef ka soo goostay iyo xaleefkan kaga jaray xudunta waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynay waa nin caadi u sheekeynaya asagu waa ninka le balaaya ay saartay cirib ee aniga iguma dhicin waligeed balaaya wuxuu yiri markay gabadhii u mushay waxana afkana ma siin gabadhan waa wareersantay iyadoo dhan ba nooc kale ay tahay waa gabadha xal wariqdu ku dhacdo dadka hore dadkii oo dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratigi baan bireeyay ayr baratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaaday gabadhi markay fiicnaatay xoogaa indhihi kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribu ratigaan noo qalayhay ila meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribu yiri oo nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalayo inta qaadatay jeegaan wabiga dah gabadhi mar alla markay istir wabiga aad u taabsiisi jeergaankii baalkii jeegi yaxaas baa ku dhuftay markaas aan waxaan arkay jeegi cirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii yaraaba ku soo laabtay hilib male marka qalitaan iyo u dhamaatay qofku oo hilibka u qaliyay gabadha ahayd asagu nolol kuma jirin wixii ilmaha yar baan iska qaatay dharkii aan qabo dhanna waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduubay saa uu orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqaya wiilkii yara oo aan watay oo aan asna nafo ku jirin hooyadina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa afka ugu gashay wuuna qaawan yahay asagu ilmaha yarka wuxuu haystay maradu ku duuduubay ilmuhu ku duuduuba baan waxaan ku war helay bahal ulaho igu dhigtay kor baan u fiirshay mise gabar inaan ay uleynayso waxay tir balaayada reer ariga dhex degtay maxaa saas markaan u istaagay oo ay yartay inaan qaawanahay bayse siidays way carab 5 daqiiqo kadib waa kuwan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayl geyso tir balaaya ariga ku dhaxarka qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa wiil oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa maray saaray wiil oo ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay biyo uleysay wada odaygu markuu cuntay siyaasado ila hadlay muu tagay
yuu shiikhiyo niman soo kaxeeyo gabadhii baa laygu meheriyo hameenkii baa aqal baa laygeeyey haddeer buu yidhi ninkan markuu u sheekaynayo dhowr iyo 20 ilmood iyo xoolo malaayiin aan leeyahay marka weligay dhibaata iguma dhacin laakiin maalinkaas cirib isaartay